السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ولا لها قلبك رمضان كريم رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير ولا ليال وأدوكتين وحكو جرنا بشي خير كبنديت الحمد لله ولا ليال وحكو جرنا بالخير بدن أو إسبرارو جسوباهن مركا سادراديت waxaan doonayaa marka in isbiraaro jirno marka barnaamijka ka hor waxaan rabaa inaan quraan noo akhriyo marka dhegeyso bismillahir rahmanir rahim محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما marka walaalayaal barnaamijkeena maanta waxaan kala hadli rabnaa marka qissa aad u murugo badan oo cajiib ah marka walaalayaal waan bilaabi rabaa marka la socda insha Allah taala marka gabar waxaa jirtay gabar yar oo qeyngaar ah oo qurux badan oo la dhahayay daareyn ay la dhahayay marka waxay doonaysay inay waqtigeeda arooska la gaaray marka inay aroosatay rabtay marka waalidiinteeda u tagtay waxayna ku tiri waxaan rabaa inaan nin igu dartiin saad daraadeed aan rabaa inaad nin adiga ii doontiin marka ninkaad ii doontiinna ma diidaayo marka gabar fiican bay ahayd oo Ilaahay ku xiran marka waxay rabtay inay wadkeeda ay aragto wadka ay dhashay ay rabtay inay aragto marka kadib waalidiinteeda nin bay u heleen way u arooseen marka kadib marka sanadooyin kadib 5 sano kadib Ilaahay bay bari jirtay intaasoo markii la aroostay kadib Ilaahay bay bari jirtay marka inay u wad hesho marka 5 sano wad may helin 5 sano marka wad markay helin Ilaahay bay bari jirtay Ilaahay lay ku xirneed marka Ilaahay ka aqbalay marka inay u wad hesho ay inta ka hor wadkay rabto wadkay ay ku curato waxay rabtay inuu noqdo wiil magaciisana waxa la dhahay ay rabtay in la dhaho Muhammad ما شاء الله ما في عنواي وهاي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيا لدهي محمد مركا ولا ليال قبداسي دارين أبين مركا نكدنا نفي عنه إسكا أها لكن مركا بحاول أشي مركا ويلكي محمد أيوب حيين مركا أبيسنا على دهي أحمد مركا نكدنا أحمد بلدهي ما شاء الله مركا غير بإسكا قبين لكن ويلكي والو أفريش من إسلامتا ويلكي مركا ده شيء ولو أفريشمي مركا حافظة مركا لكينا إسلامتا waxay ku dhatiraaday ninkeeda aniga xaafada sidii shaqada hore oo qaban jiray oo ma qaban kari oo maxay yeelay xaafada way maxay yeelay nabar bay u yeelaan shaqooyin kari xanuun baan dareemaya marka sida daraadeed shaqaale noo qabo marka hayu ka dhahay marka shaqaale darisku tagay shaqaalu raadiyay islaan duqa soo saartay dhahday ana lacag u baahan ana rabaa inaan shaqeysto marka laba week markay shaqeysatay islaantii ay shaqeysay waxay dhahday waan tabar dhigay waxaan doonayaa gabar aan dhalay oo ayadana qeyngaar ah oo garanayso sidii loo shaqeeyo ayaan keenayaa haddii ay garanaynin waan barayaa marka saa daraadeed aniga waan tabar dhigay marka sidaa daraadeed aniga waxaan rabaa inaan nasto marka islaantii waxay dhahday diyaar way maxaa yeelay duq baa tahay naso kadib islaantii way tagtay gabadhii u soo keentay gabadhii markay shaqada markay soo aadayso dhibka yaalo waxaa way gabadha markay yaryihiin ay qeyngaarayaan waxay doonayaan in la attractireeyo oo la arko maxay yeelay make up ay soo marsan jirtay oo soo qurxin jirtay dharka oo qurxan ay soo xiran jirtay markay shaqada soo aadayso marka islaanta in badan ay ayadoo saas ay aragtay marka waxay dhihi jirtay marka shaqada soo aadayso dhar raaf baa la soo xirtaa ma aha inay aad soo qurxiso ayadoo waxay ka cabsanaysaa marka ninkeeda inuu fiiriyo oo ka helo ay suxan isku dhaqmaan dhow ay ka cabsanaysaa masiira meesha yar soo galay maxaa yeelay gabar quraxsan oo yar oo hadana shaqaale ah marka isma keenayso marka gabadh markay soo quraxsanaa subax kasta imaan jirtay ninkii marka gabadh u arko damac baa geli jiray gabadh marka ayadana waxay ahayd gabar xaraamiyada gabadh ninkii ku dhacday maxaa ii fiirnaysaa camal marka islaantaada u xistamiya islaantaada xanuunsan marka zinaday ku dhaceen kadib markay isku dhaceen gabadhii ay wixii xuma ay sameeyeen kadib ay hay'adaana saanay u aroostay saanaan nin ku raadinay nin baan saan ku helay ninka asana nimcay u tabo jannay u tabo maxaa yeelay islaantiis way xanuunsan tahay nabar ay ku yaala ayada wiilkeeda haasan karin marka ayadana asagana gabadhan si fari lacag la'aan ku helay marka
sidaas daraadeed asagana jinni baa waalaya ayadana jinni baa waalaya marka sidii adi waxa kasoo wareegtay 2 bil sidaas wuu iskula dhaqmayeen marka maalin maalmaha kamid ah marka subax kasta markuu shaqada aadayo Axmed wuxuu mari jiray daareyn gabadhaas aadan xun oo aan sheegay shaqaale ah waxaa la dhahay Jamaalaad baa la dhahay marka Axmed markuu shaqada aadayo wuxuu mari jiray daareyn uu salaami jiray dhaawac seen noqoto dhigi jiray subax kamid ah marka daareynna markaas way fiicneed marka asoo shaqada u jeedo ay aragtay muuna salaamin marka shaki baa galay maxaa qaldan waxbaa qaldan there's something wrong markaasuu soo istaagtay waxay aaday dhankii waxay raadisay Jamaalaad way waasibay hurdaysaa waxayna hurdaysaa joodariga ninkeedii habeenkaas isla baryeen markaasaa albaabkii markay gashay waxay aragtay tanoo dharkeeda qabto dharkeedii ku hurdi jirtay markay caafimaad ahayd ay ku hurdi jirtay ninkeeda marka saa daraadeed waxay aragtay iyadoo jifto joodariga marka kadib lugtay soo jiiday waxay dhahday meesha lagulama talagin adi ma ligid maxaa meeshan ka haysaa maxaa ninkayga maxaa ku agdhigay saqajaan ay isdigaaleen waa ogtiin dumarka markay isdigaalaan waa isjiitaan markay isjiitaanna tubaa laga xogwaday marka tii laga xogwaday waxay ahayd daareyn waxayna qabtay waa idin sheegay woundkeed wuxuu ahaa operation bay ka qabtay marka waa is daba tuureen waa is jiideen ugu dambeyn waxaa laga xogwaday tii operation qabtay waa la daba tuuray marka albaabka fargada oo albaabka guriga ayaa ka gala meeshii maxaa lahaa meeshii woundkii meeshii dhaawacii marka saasay ayadana ku nafteeda ku waasay marka daareyn way dhimatay kuma haysato marka wiilkii yaraa Maxamed la dhahay soo dafatay ayada soo ordayso waxa ka hor imaaday marka ninkii xaafadda lahaa markaas uu Maxamed aaway marka wiilka hayso Maxamed aaway Maxamed waxay dhahday Maxamed anoo leeyahay jaraanjarta fuulin oo si socoto ayaan dhahay jaraanjarta fuulin marka si socotay ma ogi waxa ku dhacay laakiin wiilka anay dhahday is yahay markaas uu orday in wax dhacay uu maleeyay uu shakiyay uu orday marka islaantii oo dhimatay oo meesha dhiig ka baxayo ayuu arkay markaasuu naxay maxaa ku dhacay markaasaan jaraanjarta ka dhacday oo maleynaya markaasuu iska aaminay gabadhii qaaday inay dhimatay in kale muu maleyneen uu aamin waayay wuxuu qaaday isbitaalka markaas loo sheegay inay dhimatay uu murugooday uu ooyay marka kadib wuxuu wacay hooyadeeda nooleed iyo aab iyo walaalkeeda iyo walaasheeda oo ay u maadeen marka islaanta dhimatay hooyadeeda aad iyo aad aqli u lahayd maasha Allah ahayd marka kadib waxay weydiisay marka islaantan ag taagan Axmed yaa waay way weydiisay Axmed uu islaantan ku ag taagan yaa markaas uu dhahay waa baahirtayda maxaa yeelay had dhawaan aan aqoonstay maanan ogeynay dhahday maxaana uu sheegaysay markaas kadib markuu ay weydiisay ay dhahday maxaa islaantan markaas uu dhahay islaantan waa baahirtayda markuu dhahay waa shakisay markaas islaantii gabadheeda say ku dhimatay ayaan rabaa inaan ogaado markaas uu dhahay jaraanjarta ka dhacday marka albaabka firkadiisa dhaawacay ka galay saasay ku dhimatay markaas ay dhahday ilaahay baa wax ka qarsooneen anagana laakiin bil aadan xun baan nahay wax ka qarsoon yahay laakiin xaq uu soo bixi doona way ka tagtay iyadoo weynayso markay tagtay islaantii Jamaalaad la dhahay oo islaanta dilaysay ayada saasay rabtay marka gabadhii daareyn la dhahay sidaas lagu xabaalay kadib tii waxay rabtay guriga inay ku baashaasho nin ay rabtay inay hesho way heshay lacag baa heshay marka sidaasay iyagana hanti ku heshay ay magaca ay ku noqotay marwo marka ilaahay markiisa ilaahay waxay heleen nimco badan sanadka kadib caruur bay u dhalisay waxay u dhashay 8 wiil iyo 3 gabar 8 wiil iyo 3 gabar waa 11 caruurood marka nimcay ku jireen sanadka kadib barwaaqo helayeen markaas maalmaha kamid ay ku tiri waxaan rabnaa inaan aadno hala dalxiis aan rabnaa inaan aadno marka saa daraadeed waxaan rabaa inaan dalxiis noo qaado marka gaari aad u weyneyn oona yar oo oona baas ahayn taxi ahayn dhaxaad ah oo family dhan qaadayo ayay raaceen marka way tageen ayuu jidka sii socdaan ayaa gaarigii la rogmay uu gadoobay marka waxa ku dhimatay 9 wiil iyo 2 gabar 9 wiil aan leeyahay 8 wiil ahaayeen 7 wiil iyo 3 gabdhood waxa soo haray wiilkii curadka ahaa iyo islaantii ayaa soo haray marka isbitaalka la orday islaantii xaaladaha dambe dhan ayay ka ahayd mid wiilkana gacantii iyo lugtu ka jabay marka waa la tacaalay wiilku caafimaad islaantii laakiin xaaladaha dambe mid bay ka ahayd marka kadib islaantii waa la tacaalay caafimaadkeeda lagu
baashiyey halaha hoose xalle kama bakayso mid curyaanay noqotaa leh wiilka caafimaad uu helay marka uu ka soo baxay isbitaalka wuxuu aaday xaafadoodii marka subax kasta uu soo booqan jiray hooyadiisa gaariyoolo ku wadi jiray kuwa curyaamanta marka kadib marka hadalkii waxaa maqashay islaantii duqda ahayd oo gabadheeda dhimanaysay oo dilaysay islaanta hadda xanuunsan marka way u imaatay waxay dhahday marka ayada u yeertay waxay dhahday ii imaaw waan dhiman rabaa cafi marka u imaatay waxay dhahday ma ogtahay hadal aad tiraaday had ka hor ayaa aniga hadda aan soo xasuustay waxaad tiraaday allah waxaa kama qarsoono laakiin bini'aadanka anaga sidayn oo kale waxuu ka qarsoon yahay waad sidaad sheegaysa waa runtaada maxaa yeelay aniga gabadhaada jamaalaad anigaa dilay maxaa yeelay waxay u aragtay ninkeeda anoo sariirta la jiifo sidaa daraadeed way i weydiisay marka anigana ugu jawaabay uu i qabaa markaasay xinaaqtay waa isdaba tuurnay markaas kadib anaa daba tuuray waxay ku dhacday albaabka firgadiisa sidaasay ku dhimatay anaa dilay ee cafi markaasaa dhahday ilaahay silaca kuu dilo silac u dhimo weligaa ma caafimaadaysid markaasay dhahday way oosay maxaase yeelaysaa maxay isibcinaysaa ayadoo hadalkaas saa laisku haayo waxaa imaaday wiil dhalinyaro ah oo aad u weynaaday marka wiilkaas yaa waxaa waaye maxamed waaye maxamed yaa oo islaanta daareyn dhashay ayuu ahaa aabihiisna dhimanayay markaas wuxuu u imaaday dhaxal inuu qaato dhaxalkii aabihiis dhaxalkii gurigii asaa la wareegay gurigii weynaa oo ayad lahayd asaa la wareegay lacagtaygan waxay haysataa xoogaa lacaga bis laakiin gurigi iyo dad ma hayso wiilkeedii subax kasta suu ugu soo kalihi jiray maalin maalmaha ka mid ah soo gaari saaran gaarigaa dardari isagana saasuu ku dhintay waxaa u haray hooyadeeda aabaheeda iyo walaalkiisa iyo walaalkeeda marka subax kasta way soo booqan jireen marka isbitaalka laga bixiyay waqti laga bixinaa la gaaray xaafadda la geeyay xaafadda reerkooda la geeyay kadib xaafadda markii la geeyay islaantii marka aabaheeda iyo walaalkeed ayagana maalin ayagoo socdaan jidka shilay ku dhinteen dadkeedii saanay noqdeen maxaa yeelay dembigaa laga dhaqayaa dembigii ay ka gashay islaanta daareyn la dhahayay ayaa laga dhaqayaa waxaa u haray walaalkeeda bis walaalkeedii marka nin wuxuu ahaa nin xun oo qamraystu ahaa lacagtii ay haysatay uu gacanta kaga dhigay uu ka qaatay uu ku qamraystay qamruu ku cabay uu ku sinaystay uu ku baashaalay asana silxumo ku dhintay cudur xun ku dhintay marka sidaa daraadeed ayada keligeeda soo hirtay marka dariskii oo ayada agdegnaayeen ayaa markii dambe urkeeda intii la joog waayay ay guri xaafadda ka dambeeya ayaa lagu xareeyay keligeed ilmo ma hayso waalid ma hayso walaal ma hayso nin lacag ma hayso marka dembigii ayaa haya mayna toobadkeenin marka gurigii yaa lagu dhex riday keligeed cidla markaasay ur iyo bakti ahaan ay u dhimatay keligeed cidla ku dhimatay marka walaalayaal qisadaas waxaa ka faa'iideynaa ninka dembi sameeyo ilaahay uu gaadin iluu ka toobadkeenayo hadduu ka toobadkeen waayona sidaas ku tagaya oo camal ilaahay uu qabanaya hal mar ilaahay hadduu ku qabtana kama baxsan kartid oo u dhimanaysaa leh marka ilaahay naga dhiga dad fiican qaatum fiican allah nagu dilo ilaahay cudurkan xun oo coronavirus ilaahay naga qaabto ilaahay naga bixiyo sidii masaajideena loogu furo marka walaalayaal markasta aad wax sameynayso wax fiican ahaadaan maxaa yeelay waa wax adiga adduunyada iyo aakhirada ku fiican marka walaalayaal sidaad ogtihiin bisha khayrka badneed aan ku jirnaa ilaahay si nabad ah nagu dhameeyo ilaahay si nabad ah nagu gaarsiiyo bishan bisheeda insha Allah taala cudurkan xun Allah naga haayo si islaam u nahay marka inta xanuunsan Allah caafiyo inti oo baadiyaysan Allah soo hanuuniyo ilaahay naga dhigo dad jid toosan haayo walaalayaal marka sidaa daraadeed waxaa idinka tegayaa khayr badan ramadaan mubaarak kullu caam wa antum bikhayr